wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa tababar soconayay muddo 3 bilood ah waxa ay u soo xireen cutubka afraad ee ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. Maxamed Xasan Qays ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray. xaflad kooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa tababar soconayay muddo 3 bilood ah waxaa loogu soo xiray dufcadii afraad guutada 6aad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya waxaana tababarkan soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Roble iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod waxaana labada mas'uul ciidanka tababarka loo soo xiray ay ku dhiirigeliyeen in ay ka mid dhaliyaan waxyaabaha la soo baray iyagoo sidoo kale ku amaanay dadaalkii ay bixiyeen iyo adkeysiga muddadii tababarka uu socday. waxaan runtii wax aad loogu farxaa aad loo bogaadiyay in maanta aan ka hadlayno meeshaan ka nimid oo ogtihiin dhammaan magaalada Muqdisho iyo gudaha dalka Soomaaliya inteena badan wada joognay meeshaan ka nimid iyo maanta inaan ka hadlayno hadii Ilaahay yiraahdo ciidan Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya tababar iyo discipliin ku qaadanaya si shacabkooda ay ugu adeegaan runtii wax aad iyo aad loogu farxo waayo madaxtooyadana waxaan joognay maxay ahayd aan jidkeeda xataa la istaagi karin banaankaas la istaagi karin maantana in maxay ahayd ciidankii madaxtooyada uu qaybsan yahay qaarna in tababar maxay ahayd ku qaadanayaan gudaha dalka iyo gaar ahaan xaruntan ay ku qaadanayaan qaarna ay sugayaan amaanka madaxtooyada ay sugayaan waxaan kaloo rabaa ciidanka 6aad waxyaabo badan yaa la rabaa inuu dheeraado ciidanka kale ciidamada kale ee qalabka sida military ama police ama nabad sugid ha ahaadaan ama asluub sababtoo ah ciidanka ururka 6aad waa kan ilaaliya ishii ummadda Soomaaliyeed ilaaliya dhammaan madaxtooyadii qaranka Soomaaliyeed muraayadii dalka ee runtii ilaaliya waxa loogu baahan yahay foojignaan dheeraad sidii horeba maxay ahayd dadkii iga horeeyay u sheegeen waxaan rabnaa inaan tababarkan maanta soo xirno dufcadii shanaadna inay bilaabaan oo iyagu ay muxuu ahaa haddana saan oo kale aan uga soo qayb galno ayagoo qurxoon annaga halkaasaan ku xiraynaa بعدما صفي على يدي سو أبابلي ليدي تبري ليدي نجاتشي أضو في قتال أضو في عن أمه قتال وحيالا بدونا استعشان بتشفت مركي دتك سانو كلا تبرك الله وحرهاي قار والد الحسية قار نقال السيا قار محاه والجنا والجريبا قار وحسودن لكن والجارهاي درجة هذا الحرتي أو سركيل يسركيل عيال يسكر بيسوي شرتان أنا ودرجة كواخذنا قان لكن احترام كذا ما نقال درجة هذا كذا بيسا نك ألف قاتا ألف نكي قاتا مشار بكو قادة دورة مشار سعيد بكو قادنا والعيد كالحين هدينا هيدا واقش هينا والقش هينا بركسي لو بوجيو ألف له إنه عسكري كسر رين أو كسر ده بحي عيدك كسر ده بحي ونك بكسر ده بحيا أما كوح بكسر ده بحيا أما هريب بكسر ده بحيا أما أورده أبكاسا الله هبل هذه ما أنت واحد درجة صاحرة ليس واحد المسيرة نقال المسيرة. محمد حسن قيس RTN TV مقالة مقدشو.